Bismillah, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhawaada asxaabta qaaliga waa mar kale iyo muuqaal kale cusub iyo faa'iido kale cusub. Ma jeceshaa wejigaada inaad si dabiici u daryeesho adigoo gurigaada joogo? Iskiinka dhintig waxyaabaha kaa saaran inaad iska qaado. Haddaba jawaabtaadii haddii haa tahay waxaan ku wadaa maaski aad iyo aad u faa'iido badan. Iskiinka dhintay wejiga kaa saaran kaa qaadayo. Sidoo kale haddii duuduub iyo laalaab wejigaad ku leedahay ama maqaarka wejiga uu kaa kala daadsan yahay wuu kuu soo ururinaya wuuna kuu taagayaa anti aging qurux badan ayuu kaaga dhigayaa. Sidoo kale wuxuu ku siinayaa whitening dabiici oo aad u qurux badan haarta wejiga ku samaysato si dabiici ayuu kaaga tirayo kaaga nadiifinaya wejigaada wuxuu kaaga dhigaa weji aad u dhalaalaya aad u qurux badan cadaan khafiif oo yellow oo maasha Allah ku siinayaa dabiici ah iskiinkaasi waxyaabahaasna wuu kuu kilin gareynaya wuu kuu qurxinayaa nagala faa'iidayso muuqaalka nala sheer garee asxaabtaada kale la wadaag muuqaalka like soo dhawaada asxaabta alaabteena ayaan diyaarsanayna idinkala nala socdo muuqaalkana la dhameysto step by step noo sii share garee oo noo sii like garee si walaalo kale far badan u gaaro muuqaalkeena ugu horreyn shey koowaad haysta waxa waaye waa ukunta qaybta yar ee jaalaha ama yellowga ayaan haystaa intii caddeed waa laga soo reeba waa qaybta jaalaha ah ama yellowga qofka sida u yaqaano qaybtaas oo keliya ayaan u baahanahay hal xabo ukun ah qaybta yar ee jaalaha soo qaado soo fariisa adna weelkaada soo qaada waxaan diyaarinaynaa maaska aad u faa'iido badan sidoo kale waxaan haystaa waxa waaye waraango ama nasha ama cornflour ama midda xalwada lagu kariyo qofba sida u yaqaano inaa fahanteen ayaa rajeynayaa alaabtan aad iyo aad ayay kuu caawi doontaa haddii aad sidaan u samaysato ama aad u diyaarsato waxyaabo fara badan 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 ayay wejigaada ka qaban doontaa ama ay ku wanaaji doontaa haddii uu maqaarkaada kaa kala daadsan yahay way kuu soo ururi doontaa anti aging ayay kuu samay doontaa biigadaha ama laalaabka ama duuduubka wejiga miimta waxyaabaha gabowga la halmaalo ku yimaado boqolkiiba boqol way kaa caawinaysaa anti aging dabiici ah ayay kuu samaynaysaa welibana aad iyo aad ah sidoo kale waxay kaa caawinaysaa iskiinka dhintay maqaarka wejiga kaa saaran inay kaa qaado ay kaa nadiifto ay kaa kelin gareyso sidoo kale waxay kaa caawinaysaa haarta wejiga ku samaysato labada dhaban korkooda hadday tahay sanka hadday tahay way kaa caawinaysaa way kaa tiraysaa welibana si dabiici ayay kaaga tiraysaa wejigaada way kuu nafaqaynaysaa brotiinisay kuu siinaysaa iskiin aad u qurux badan glowing iskiin ayay ku siinaysaa aad u dhalaalayo whitening dabiici oo qurux badan ayay ku siinaysaa cadaan khafiif oo yellow oo maasha Allah tabaaraka Allah ayay ku siinaysaa iskiinka hadduu kaa kala daadsan yahay way ku soo ururinaysaa waa alaab yar oo brotiin ah gurigaada iyo gacantaadana aad ku diyaarsan karto whitening dabiici hadday ku siinayso hadday ku siinayso anti aging hadday ku siinayso vitamins iyo brotiin ku siinayso wejigaada ay ku nafaqaynayso weji kushkusho aad u qurux badan cad haar aana lahayn keliya adiga waxaa lagaa rabaa in aad waqtigeeda ku isticmaasho joogtaysa ayaa lagaa rabaa sidoo kale waxay kaa caawinaysaa waxa ay tahay xaada labada dhaban ama shaaribada meelahaas xaada adiga wejiga ku imaato oo kale haddii aad qabto oo aad leedahay waxaad samaynaysaa qaabkan oo isticmaalaysaa markii aad mariso maaskigan ayaa waxaad samaynaysaa tiish ayaad soo qaadanaysaa tiishka ayaad ku dhejinaysaa waad ku fiiqaysaa xaada dhan way kaa kelin gareynaysaa way kaa nadiifinaysaa adigoo waxyaabo mashiin iyo sakiin iyo aadan qaadan iska xiirin ayay kaa qaadaysaa tiishkaasay soo wada raacaysaa xaada dhan wejigaada nadiif aad u qurux badan ay kaaga dhigaysaa whitening dabiici oo qurux badan way ku siinaysaa wejiga way ku cadaynaysaa cadaan khafiif oo yellow oo maasha Allah ay ku siinaysaa iskiinka dhintay wejiga kaa saarana way kaa qaadaysaa oo way kaa nadiifinaysaa haaraha oo kale haddii aad ku dhiban tahay way kaa tiraysaa wejigaada hadduu shucaac ku furan yahay oo kale oo dhibca dhibca tush tusha iyo waxyaabahaas aad leedahay oo dhan way kaa nadiifinaysaa way kaa qaadaysaa waa alaab yaroo dabiiciya gurigaada iyo gacantaadana aad ku diyaarsan karto faa'iido fara badan kuu leh wax badanna aad ka faa'iidi doonto wax dhibaato ama effect aana lahayn aad iyo aadna aad uga faa'iidi doonto maasha Allah adiga kaliya waxaa lagaaga baahan yahay in aad joogtayso ayaa lagaaga baahan yahay maahan inaad maalin iyo laba aad natiijadeeda ku dareemi karto natiijada ugu badan aad ku dareemi karto waxay tahay waa inaad isbuuc isticmaasha hal isbuuc inaad isticmaasho ayaa loo baahan yahay haddii aadan maalin kasta samayn karin xitaa waxaad samaynaysaa sidoonoo kale waad samaysanaysaa weel ayaad ku shubanaysaa talaagada ayaad gashanaysaa talaagada gasho qaybta aanan barafka dhalinaynin gasho subax kasta wejigaada saar
wejigaada natiijadiisa adiga ayaa dareemi doono haddii aad haar ku dhibaneed qarash badan oo kaaga baxay wejigaada inaad kilingareysad nadiifisid xaadi waxyaabahaas aad ka nadiifisid rabto wejigaada inuu anti aging u sameysmo oo waxyaabaha maqaarka kaa kala daata uu kusoo ururo haddii aad rabto aad iyo aad ayaad uga faa'iidi doontaa insha allah inaad ka faa'iidaysateen rajayna muuqaalka